adeegyada uu bixiyo xafiisku waxaa ka mid ah shahaadooyinka gobolada bariga oo dhammaystiran ilaa iyo laga bilaabo 2022 ilaa iyo 2025 shahaadooyinkoodii oo dhammaystiran shahaadooyinkiina soo gaaray waqtiga ilaa 2022 ilaa 2025 tiradooda guud waxay noqonayaan 44,959 shahaadooyinka naga baxay haddaan hoos ugu yara daadigo waa 27,116 shahaado ayaa naga baxay oo adeegii ka mid ahaa xafiiska lagu fuliyey. in markii ugu horeysay halkan lagaga dhawaaqo natiijadii imtixaanaadka qaranka lagaga dhawaaqo sharaf ayay noo tahay maanta oo ay bishu tahay 25 bishii 8aad waxaan u rajaynaynaa dhammaan ardayda guul ayaynu u rajaynaynaa. waxaan leeyahay dhammaan ardaydii imtixaanaadka gashay ee dugsiga foonfoorka ka gudubtay galaaska foonfoorka ka gudubtay hambalyo ayaan leeyahay. sharaf iyo guul weyn bay noo tahay inaan maanta ka soo qayb galno in maanta lagaga dhawaaqo gobolladii bari imtixaankii shahaadiga ahaa. markii hore safar dheer un baan u jiri jirno annagu gobolka tagdheer haddaan ood weynan nahay ama daad mareen gobolka tagdheer waan iska ogolayo ma diidno. anigu meel dheer baan uga nimiyo waxa weeyaan gobolada barigu horta waa badan yihiin oo markaa iminka dagaalana waa kusoo biiray gobolkii saaxil. xafiiskan markii hore waxa loo aasaasay inuu fiilgareeyo gobolada bariga min baran ilaa sool ilaa iyo muxuu ahaye gobolkan maanta aynu joogno togdheer. sana dugsiyeedkii 2025 la geliyey maanta tacabkiisiba ayaa halkan ka soo bixi doona insha allahu. dhammaan ardayda jamhuuriyadda somalilan dhammaan waxa weeyaan bahaweynta ama waalidiinta kala duwan dhammaan waxaan u rajaynaynaa natiijo fiican iyo guul wanaagsan. laakiin maanta waa noo farxad inaan burco maanta namartigelisho waa wax weyn bay noo tahay waayo dadku way sii kordhayaan. marka insha allah waan dhiirigelinayaa maamul daadejinta waan dhiirigelinayaa waana u mahadnaqayaa cid allaale cid kasoo ka qayb gashay ugu horeeyo madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan. wasaaraddana waxaanu ku bogaadinaynaa inay maanta ku qabsatay oo ku qabatay gobolka togdheer gaar ahaan degmada burco shaacintii imtixaanka shahaadiga ah ee foonfoorka iyo eidka. waxa aan mar labaad u ducaynayaa oo aan leeyahay ilaahay ha inoo barakeeyo, ilaahay waalidiinta ha u barakeeyo, ilaahay aqoonta ay barteen mid barakale oo qarankooda iyo qoysaskooda iyo nafahoodaba oo ku anfacaha ka yeelo. ardayda Soomaaliland guul baan u rajaynayaa. qof kasta oo maanta halkan taagan uu soo maray marxaladda maanta ay taagan yihiin. waxaan rajaynayaa natiijo inaga wada farxisa idinkana idinka farxisa. wasaaradda ardayda cadowga wixii idinka farxiya anagana naga farxinaye insha Allah waxaan idin rajaynayaa inaad natiijo fiican keensataan. waxa weeyaan imtixaankii waxa weeyaan natiijadiisa lagu dhawaaqayaa wasiirka wasaaradda waxbarashada professor Ismaaciil baa ku dhawaaqi doona. kabacdi markuu ku dhawaaqana wasiirada ayaa xigi doona waa dhageysan doonta wasiirada oo dardaaran iyo hambalyo iyadoo carruurta halkan uga diri doona. waxaan filayaa halkan hambalyo mooye maanta wax kaloo ka furani ma jiro. bacdamase haddii aanu halkan maanta aanu joogno gobolka runtii aad iyo aad baan ugu faraxsanahay annaga iyo wasiiro badan oo hadda joogaaba inaanu gobolka joogno. aad iyo aad baan u hambalyeynayaa waalidiinta iyo ardayda maanta sugaysa imtixaankii in loogu dhawaaqo. mar labaad waxaan hambalyeynayaa dadaalka badan ee wasaaraddu ku jirto. inaan u sheego xafiiska imtixaanaadku inuu qaranka weligiiba hor socday marka la eegay ilaa halkuu imtixaanaadku gaadhay. runtii way naga maqan tahay gobolka baran oo kale ilaa buraan ayuu xafiiska imtixaanaadku imtixaan ka soo qaadaa. waxaa kaloo maamul daadejinta isbeddelka la socotay annagu waanu ka sii horreyno 2015 2016 ayaanu gobolada dalka oo dhan shahaadadaha u daadejinay gobol walba waanu geyn jirnay. markaad eegto natiijada ardayda runtii waanu ku farxnay sanadkan sababtoo ah imtixaanaadkuna jiitin badan ma lahayn sababtoo ah imtixaanaadka ardayda sanadkan laga qaadayay waxay ahaayeen dhowr imtixaan. imtixaanaadka waxaad moodaa marka la eego wacyigelintii iyo ardaydoon cidna cid isku halayn aad iyo aad ba u fiicantahay natiijada sanadkan ardayda imtixaanaadku. waxaa lagu bushaareynayaa in aad iyo aad sanadkan uga wada wanaagsanyay sanadadii kale. maanta oo taariikhdu tahay 25 bishii 8aad 2026 waxaynu halka ka dhawaaqaynaa natiijadii imtixaanaadka shahaadiga ee fasalada 8aad iyo fasalada 4aad ee dugsiga sare. ilaah baa mahad iska leh maanta inagoo joogna gobolkii togdheer magaaladii burco inaynu kaga dhawaaqayno halkan natiijadii imtixaanaadka qaranka
ومركي جوه الرئيسي حقا قبل كلا يقدر واقع نتيجة الامتحانات حنا دمان أرضنا يوالدين تودبا هنبلي أنا دلاه هاي هنبلي أنا دلاه امتحانات في قرن كسر لص عطان با فصلنا السديدات واحد فريستي لحية طوان كون بقول يسقال يطوان عطي ودر تاسي ويسقو شرتي هبلو يويلل استيد كوني تضوا بقول تضوا حياة نمو تضوا كون يافر بقول يلا بيه توانو حياة هبلو ترى امتحان ككو قدوتي فصلنا أفراد أما فنفورك الله يقانه waxay noqotay 16 kun iyo 11 arday tirada aan gudbay waxay noqotay 17 arday tirada ka maqnaatay imtixaanka ee aan imtixaanka fadhiisan cilada ku yimid awgoodna waxay ahayd 12 arday waxaa leeyahay dhammaan ardayda guulaystay fasalada afraad hambalyo waan ugu hambalyeynaa ardaydaasi iyo waalidiinta badbaadmada lana guulbaydi rajaynaynaa وقلب الدرتين وحرشنا وليس صعطة. وحنا مليانة أرضي المنطقة ويستي امتحان كيف فريستان